maxaa ka qaldan jacaylka? jawaabtu waa waxba waxa wax ka qaldan yihiin waa dadka intuu jacayl jiljilaac ku dhaco kadibna jiljilaac iyo jiro isku ridaa muuqaalka maanta waxaan kaga jawaabi doonaa su'aasha ah maxaa ka qaldan jacaylka. qof kasta wuxuu yiraahdaa jacayl ayaa dhaawac iga soo gaaray, laakiin taasi run ma ahan. kalinimada waayida qof, quusashada diidmada nacaybka, la noolayaanshaha xasuus iyo murugo welwel badan ayaa dhaawac ku keena. intaana dad baa sameeya. qof kasta wuxuu ku qaldanaa kii uu jeclaaday. xaqiiqdii jacaylku waa waxa kaliya ee dabooli kara xanuun oo dhan, uu keeni kara qofka nolol, nabad iyo naruuro. sidaa darteed jacaylku been ma sheego, dadka ayaa se sheega beenta. jacaylku ma tago, dadka ayaa taga. jacaylku kuma diido cunto, adigaa diiday cuntada. jacayl loo qabo qof dartii ayaaba loo cunaa cunto. jacaylku ma sameeyo khiyaano, dadka ayaa sameeya khiyaano. xaqiiqdii jacaylku kuma keeno niyad jab iyo murugo, taasi waa waxa qofka uu awoodo inuu sameeyo. jacaylku ma ahan maalin keliya oo loo dabaaldego. kuwa xusaya ee xafladaynaya badidood ma jeclo naftooda, mana jeclo allihii abuuray. kolkaas sidee bay qof kale jacayl u siin karaan? jacaylku ma ahan wax la jiro, waa ficil, waxaana lagu muujiyaa ficil. sidoo kale romaansigu ma ahan keliya in xab laysa siiyo, heese la dhegaysto, shumac la shido, waa qofka inuu gartaa nolol cusub inay u bilaabantay, mas'uuliyad cusubna dusha ka fuushay. wixii hore uu joojiyaa, daryeelaa lamaanihiisa, dadaal badan uu bixiyaa, si adagna waa inuu u shaqeeyaa. ogow haddii hadhow kiro guri biil ama koronto lagu dalaco, hab baan ku siinayaa oo romaansi baan ahay kaa bixin mayso. haddii qof jacayl idinka dhexeeyey kala hartaan, micnaheedu ma aha in jacaylkii dhammaaday, waa in xidhiirkii qofka keliya la lahayd joogsaday. si la mid ah haddii qofka jacaylayd kaa tago, ma aha inaad tidhaahdid qof dambe aamini maayo ama dadka oo dhan waa nacay hal qof dartiis. markaa waxaad hilmaamsan tahay in adduunka ay ku nool yihiin in ka badan 7 bilyan oo qof. haddaba ha eedayn jacaylka. haddii uu dhaawac ku soo gaaro, ambaarayn xun dusha ugu tuur naftaada ama qofkii magaca jacayl ku waxyeeleeyey, kadibna noloshaada hore u sii.